السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين دويد وحن كسو هذلني Introduction to Cell Biology أما هردع أيام وحن كسو هذلني سيلكا هدابا وحن صو شيغني إن سيلكو وكوكوين يسدح ميل ومهمسن قيبتو كود وحالي لها سيل ممبرين وانا محالي لها حبك كودهارن سيلكا sidoo kale waxaan soo sheegnay inay muhiim tahay cytoplasmaha wax la yiraahdo ama maxaa la yiraahdaa meelaha ay ka buuxaan organelliska iyo sidoo kale waxaan soo sheegnay inay muhiim tahay nucleuska ay ku jirto ama aan dhihi karno waa meesha laga controlo cellko idil waana meesha ugu muhiimsan cellka haddaba saddexdaas main points ay ka kooban tahay cellka markay ka hadlayno haddaba maanta waxaan qaadan doonaa ama ka hadli doonaa insha Allah taala xubka ku dahaaran cellka oo loo yaqaan cell membrane waxaan arki doonaa maanta waa maxay cell membrane waa maxay faa'iido uu leeyahay ama shaqadu qabto maxaa la yiraahdaa muxuu ka samaysan yahay ay arki doonaa xiisada waxa soo socdan waxaan arki doonaa insha Allah taala cytoplasmi iyo nucleuska casharo ku saabsan ayagana noo imaan doona insha Allah haddaba marka ka hadlayno cell membrane-ku waa ruuxantii urug dhaxad wuxuu u yahay cellka maxaa la yiraahdaa waa midka controla waxa galaya cellka kana baxayo ruantii shaqadiisa ma ahan mid aad iyo aad u yar ma ahan marka ka hadlayno cell membrane-ka haddaba waxaan firi doonaa structure of cell membrane structure-ka ama qaab dhismeedka uu leeyahay cell membrane-ka haddaba hadaa bilaawno waxaa la yiri primary cell membrane is made up of phospholipids and associated protein marka ka hadlayno cell membrane-ka wuxuu ka samaysan yahay laba shay midka kood waxaa la yiraahdaa phospholipid midka labaadna waxaa la yiraahdaa associated proteins haddaba meeshan waa meel muhiim ah cell membrane-ku wuxuu ka samaysan yahay laba shay ku samaysan yahay maxaa waaye phospholipid iyo associated protein waa labada ugu muhiimsan aan maanta ka hadli doono haddaba waxaa la yiraahdaa marka basically cell membrane is double layer of molecular cell membrane-ku waxaa la yiri waa double layer of molecules ama wuxuu ka samaysan yahay double layer ayuu ka samaysan yahay laba lakab wuxuu ka samaysan yahay oo ayuu ka samaysan yahay marka molecules ah haddaba marka ka hadlayna marka phospholipidka hadda si gooni u hadalna marka waxaan si gooni u hor istaagi doonaa phospholipidka si gooni waxa u hor istaagi doonaa associated proteins ku samaysan yahay haddaba marka ka hadlayna marka phospholipids-ka waxaa la dhahay the membrane basic component is phospholipid cell membrane-ka wuxuu ka samaysan yahay phospholipid-ka marka ka hadlayno wuxuu leeyahay marka one party which is polar wuxuu leeyahay qayb oo madax oo kale ah oo la yiraahdo polar ama hydrophilic ayaa la yiraahdaa maxaa waa micnaheeda waa qayb maxaa la yiraahdaa oo madax oo kale u kuusan sidoo kale waxay jeceshahay inay biyaha la falgasho sidoo kale waxaa la yiraahdaa waa polar ay leedahay one part which is polar sababtan waxay tahay waa water soluble biyaha ay ku milmi karaan marka because maxaa yiraahdaa Allah taas waxa waaye hydrophilic waa micnaheedu hadda in soo ka waxa waaye cell membrane-ku wuxuu leeyahay qayb la yiraahdo maxaa la yiraahdaa hydrophilic ayuu leeyahay hydrophilic micnihiisu waxa waaye waxay jecel yihiin biyaha ay jecel yihiin waterka ay soluble waterka ay ku milmi karaan marka biyaha jecel yihiin waxay jecel yihiin inay biyaha ku milmaan saa daraadeed cell membrane-ka waxaan ka wadaa phospholipids-ka wuxuu ka samaysan yahay laba shay shayga koowaad waxaa dhihi doonaa waa polar ama hydrophilic waaye biyaha way jecel yihiin kow another partin waxaa lagu magacaabaa scolet fatty acid qaybta kale uu ka samaysan yahay waxa waaye fatty acid ayuu ka samaysan yahay macnaha wuxuu ka samaysan yahay phospholipid structure of phospholipid ay ka hadluna hadda phospholipids wuxuu ka samaysan yahay laba shay qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa waa polar ama hydrophilic waaye biyaha way jecel yihiin wayna ku milmi karaan qaybta kale waxaa la yiraahdaa waa fatty acid waa fat waaye marka ayaga maxaa waaye waterka ma ku milmi karaan fat ama dufin biyo kuma milmi kartaa ma ku milmi karto saa daraadeed waxay ka samaysantahay labadaas shay oo la yiraahdo fatty acid iyo polar ay ka samaysantahay saa daraadeed marka waxaa la yiraahdaa are not water soluble fatty acid-ka kuma milmi karto biyaha this component has not dissolved in water sidaa daraadeed maadaama aysan ku milmeynin biyaha waxaa u bixinay hydrophobic ayaa loo bixi doonaa maxaa u bixi doonaa hydrophobic ayaa u bixi doonaa hadda waxaa soo sheegnay hydrophilic micnihiisu waxaa waaye waxay jecel yihiin inay biyaha la falgalaan sidaa daraadeed waxaa dhahan waa hydrophilic biyay jecel yihiin haddaba qayb kale waxa waaye qaybtan kalena waxa waaye iyadan waa fatty acid waa dufin sidaa daraadeed ayagana waxaa dhihi doonaa biyihii necab yihiin inay la falgalaan ma u arki karaanba biyaha sidaa daraadeed waxaa dhihi doonaa waa hydrophobic biyaha way ka cararaan ama way necban yihiin biyaha
sida daraaddeed waxaa dhihi doonaa marka phospholipids-ka wuxuu leeyahay laba qayb uu ka samaysan yahay. Phospholipids-ka muxuu ka samaysan yahay qayb la yiraahdo hydrophilic iyo qayb la yiraahdo hydrophobic. macnihiisu waxa waaye qayb biyaha jecel iyo qayb biyaha neceb ayuu ka samaysan yahay. macnaha qayb waxaa la yiraahdaa waa hydrophilic, biyaha jecel inay la falgalaan. qaybna waxa waa biyaha ka cararaan. qaybta biyaha ka cararaysa maxaa la yiraahdaa waa fat waa marka, ama waxay ka samaysan yihiin fatty acid ay ka samaysan yihiin. haddaba sawirkan imaano sawirkaas idin kuu sheegay waxaa idin dhahay qaybta oo maxaa la yiraahdaa hydrophilic ah waa madax, qaybta madaxa kuusan oo guduudka saa idin soo sheegaba waxaa idin dhahay waa bowler. waxay jecel yihiin inay biyaha la falgalaan. saa daraadeed maxaa dhihi doonaa waa hydrophilic waa dhihi doonaa marka. fiiri meeshaan lagu qoro waxaa lagu dhaha attracted to water, biyaha ay soo jiidanayaan marka, ama biyaha ay jecel yihiin inay la falgalaan. qaybtan waxaa dhihi doonaa waxay jecel yihiin inay biyo la falgalaan, sidaa daraadeed waa hydrophilic. qaybtan oo lugaha camalka ahna waxaa dhihi doonaa waa fatty acid ay ka samaysan yihiin. waa maxaa la yiraahdaa waa hydrophobic, waa biyihi neceb yihiin marka. haddaba structure-ka oo phospholipids-ka waa labadan shay. muxuu ka samaysan yahay phospholipid? wuxuu ka samaysan yahay qayb bowler ah iyo qayb fatty acid ah. qaybta bowlerka maxaa waaye hydrophilic, waa biyihi jecel yihiin inay la falgalaan. qaybta oo fatty acid-ka ka samaysan waxay neceb yihiin inay biyo arkaan. haddaba sawirka kasii hoose umaano, sawirkana u amaano. haddaba maxaa ujeedin meeshaan? waxaa ujeedin hydrophilic, madaxa guduudan maxaa waaye wax madaxa guduudan waa hydrophilic. kuwana luguhana maxaa waaye waa hydrophobic, biyihi neceb yihiin. sidaa daraadeed marka qaybtan banaanka maxaa waaye qaybta madaxan guduudka, qaybtan korka ee waxaa waaye waa extracellular ay la yiraahdaa. meesha extracellular ku qoran tahay waxa waaye waa extracellular, banaanka cellka waa macnaa waxa ka buuxo waa biyaha ka buuxo. sidaa daraadeed marka maadaama uu biyo ka buuxo waxaa lasoo aadiyey, maxaa lasoo aadiyey bowlerka lasoo aadiyey ama hydrophilic lasoo aadiyey si biyaha ay la falgalaan. sidaa daraadeed qaybta kale aa ujeedin inside the cellka waa ujeedin maxaa la yiraahdaa waxaa yaalo bowlerka yaalo, waxay la falgalayaan intracellularka. meesha intracellular ku qoran cellka gudihiisa waa macnaa. fiir macnihiisu waxa waaye cellka gudihiisa way ku jiraan, cellka banaankiisana way yaalaan macnaa. mujeedin sababtan oo bowlerka markasta oo cell ugu jira maxaa waaye waxaa la ilaalinaa fatty acid-ka. sababtoo fatty acid-kan hadday biyo arkaan waxaa waaye bis waaye marka. sidaa daraadeed waxaa la rabaa marka inaysan maxaa la yiraahdaa aysan arkin fatty acid-ka ama lugahan oo tailka ah inaysan arkin la rabaa maxaa la yiraahdaa biyo. sidaa daraadeed kuwana markasta banaanka aadaya. qaybta extracellular fruit-ka waxaa xigo hydrophilic, qaybta extracellular-kan hydrophilic macnaa labadaba way ku dhex jiraan. qaybta inside-ka iyo qaybta outside-ka ay u dhexeeyaan. sidaa daraadeed mujeedin marka fatty acid-ka ama maxaa la yiraahdaa hydrophobic way iska soo horjeedaan. mujeedin lugahan way iska soo horjeedaan. macnihiis maxaa waaye waxaa la iskaga soo horjeediyey macnaa biyo ma arki karaan. sidaa daraadeed way iska soo horjeedaan marka. sidaa daraadeed marka waxaa dhihi doonaa waxa waaye structure of phospholipid. sidaa daraadeed marka meeqa waxaa soo aragnay maxaa la yirahdaa cell membrane-ka waa double layer. macnihiis waxa waaye qaybtan waa maxaa la yirahdaa hal fatty acid soo ma maxaa la yirahdaa qaybtan waa hal fatty acid. waxaan ka wadaa maxaa la lahaa waa bowler, qaybtan waa fatty acid, qaybtan waa fatty acid, qaybtan waa bowler. macnihiis waxa waaye waxay ka samaysan yihiin double layer. qaybtan waa hal layer, qaybtan waa hal layer, isku dar maxay noqonaya marka double ay noqonaya. marka waxa marka double layer ay ka samaysan tahay marka oo phospholipid ay ka samaysan tahay. hadda misleyna structure-ka oo phospholipid, structure phospholipids waxa uu miisan waxa waaye qaybtan bowlerka ah iyo qaybtan lugaha ah oo fatty acid-ka ay ka samaysan tahay. sidaa daraadeed cell membrane-ka waxaa dhihi doonaa waa double layer. sababtoo ah waxa waaye waa kow waa layers waa kana kuwa isku dar waa labo. sidaa daraadeed waa double layer ay dhihi doonaa oo phospholipid ay ka samaysan tahay. kan kaligiis maxaa waaye waa phospholipid, kan kaligiisna phospholipid isku dar double layer ay sameynayaan marka. hadda waa kana marka phospholipids-ka waa kana marka wuxuu ka samaysan yahay labadan si idin sheegay waa kaasa. haddaba inta usii imaano marka waa kana intana waa kugu soo qoranta. fiiri halkan hydrophilic waa meesha mujeedin hydrophilic macnaha waxa waaye qaybta banaanka xigta biyahana way la falgali kartaa bacila. hadda meeshaan lugaha camalna mujeedin waa hydrophobic, biyihi way necabtaa marka. biyihi way necabtaa sidaa daraadeed hoosa la soo aadiyey marka mujeedin. okay meesha maxaa waaye extracellular space-ka mujeedin space-ka yaa xigo waxaa xigo bowlerka xigo halkaas, intracellular-kan ayagaa xigo marka. halahaas waa maxaa la yiraahdaa waa phospholipid structure-kooda. waa ujeedin phospholipid by layer-ka. qaybtan maxaa la yiraahdaa oo lugaha camal hydrophobic ayaa la yiraahdaa. qaybtan oo madax camalna maxaa la yiraahdaa waa hydrophilic waa marka. waa structure of phospholipid marka. halaas ay muhiimsan. sidaa daraadeed marka you mustna waa ina ogaataa that there is a lot of water inside an outside cell. waxaa jiro biyo ayaa ku jira cellka gudihiisa, cellka banaankiisana biyo ayaa yaala marka. cell membrane-ka waxaa kala sooca marka. cell membrane-ka muxuu kala soocaa separating, wuxuu kala soocaa extracellular aqueous environment, intracellular aqueous. macnaha cell membrane-ka wuxuu kala soocaa extracellular aqueous environment. aqueous macnihiisa waxaa waaye waa meel biyo ka buuxaan. sidaa daraadeed wuxuu kala soocaa
extracellular intracellular ay u dhaxeeya macnaha ay kala soocaa ma fahanteen cell membrane maxaa weeye wuxuu kala soocaa intracellular extracellular ay kala soocaa sida daraadeed waxaa la yidhi marka those compounds isku dhisyada which are highly charged or those compounds which are very large cannot directly cross cell membrane because only those things which are lipid soluble can cross cell membrane waxaa la dhahaa hadalkan very important waa la dhegeystayaa macnihiisu waxaa waaye waxyaabaha waaweyn maxaa la yidhahdaa highly charged maxaa kamid ah sodiumka potassiumka iyo waxaas oo dhan waxaa la cell membrane-ka maxaa la yidhahdaa kama gudbi karaan macnihiisu waxaa waaye phospholipidska kama gudbi karaan marka inta kama dhex gudbi karaan waxaa la meeshan kama dhex gudbi karaan sababtoo ah maxaa la yidhahdaa waa charges ay leeyihiin soo ma sodium charges ayuu leeyahay calcium charges ayuu leeyahay sidaa daraadeed charges ayay leeyihiin kama gudbi karaan inta sidoo kale large molecularska waxyaabaha aadka u waaweyn kama gudbi karaan meeshan ay leeyihiin marka yaa ka gudbi kara marka su-aala imaata marka haddaysan ka gudbi karin yaa ka gudbi kara waa kanaa marka which substance cross cell membrane easily cell membrane-ka si dhaqso yaa ugu gudbi karo waxa uu gudbi karo substance which are lipid soluble sheeyo ay ku qasan yihiin dufin tusaalahaan cunto dufin haddaa cuntid iyo waxyaabo dufin cell membrane-ka dhaqsi uu gudbayan macnaa su-aala lagu weydi karaa waxa lagu dhihi karaa cell membrane-ka yaa dhaqsi ka gudbo dhaqsi waxaa ka gudbo waxyaabaha oo dufinta ah ko oo lipid soluble iyo waxyaabaha aad u yaryar ka gudbi karo yaa kamid ah oxygen-ka iyo carbon dioxide-ka kamid ah caadi uu gudbi karaa macnaha cell membrane-ka fahanteen laakiin waxyaabaha large molecularska waxyaabaha waaweyn iyo waxyaabaha aan dufinta ku milmin waxay u baahanayaan waxa la yidhaahdo protein ay u baahanayaan protein sababtoo ah waxay u baahanayaan in cellka ay galaan sababtoo maxaa la yidhaahdaa cellka waxay u baahanayaan inay galaan sidaa daraadeed maxaa la yidhahdaa waxaa gelinaya cellka protein ayaa gelinaya marka journals of protein ayaa jira waa arki doonaa marka hadda laakiin waxaa ka hadlaynaa waxaa waaye waa phospholipidska waxaa dhaanay cell membrane-ka wuxuu ka samaysan phospholipid associated protein hadda waxaa xooga saaroonaa phospholipidska waa idin sheegay maxaa idin dhahay phospholipidska waxay ka samaysan tahay polar waxay ka samaysan tahay fatty acid ka soco marka waxaa la dhahay marka maxaa la yidhahda yaa ka gudbi karo cell membrane-ka hadada muhiim waay yaa ka gudbi karo cell membrane-ka waxyaabaha lipid soluble-ka waxaa ka gudbi karo waxyaabaha dufinta ku milmato iyo waxyaabaha aadka u yaryar yaa kamid ah oxygen iyo carbon dioxide laakiin waxyaabaha higher charges-ka ah iyo waxyaabaha aadka u waaweyn kama gudbi karaan cell membrane-ka sidaa daraadeed waxay mari doonaan qaab kale waa u imaan doonaa insha allahu tacaala haddaba halkaas aan ugu baxnay structure-keeda waxaa la dhahay marka phospholipidska oo ku jiro oo yaalo outer leafletska iyo phospholipidska yaalo inner leafletska way kala duwan yihiin maxaa la yidhi macnihiisu waxaa waaye phospholipidiskan tusaale ahaan phospholipidiskan inta yaalo iyo phospholipidiskan gudaha ku jiro way kala duwan yihiin lahay marka phospholipidiskan iyo phospholipidiskan way kala duwan yihiin haddaba sidee ku kala duwan yihiin macnihiisu waxaa waaye phospholipidiskan wuxuu yaalaa extracellularka ayuu yaalaa kanna wuxuu yaalaa intracellularka sidaa daraadeed waxaa la dhahay marka farqiga u dhexeeyo labadan maxaa la yidhaha phospholipid maxaa waa farqiga u dhexeeyo waxaa la dhahay marka phospholipidska yaalo qaybta kore wuxuu leeyahay la yidhahda phosphatidylcholine waxaa ku jiro waxa la yidhahda ama uu ka samaysan yahay phosphatidylcholine iyo sphingomyelin ayaa laga helaa phospholipidska of outer membrane-ka maxaa laga helaa outer leaflet-ka waxaa laga helaa phosphatidylcholine iyo sphingomyelin ayaa laga helaa ma fahanteen qaybta kore waay laakiin phospholipidska oo yaala inner leafletska waxaa laga helaa asiga laba shay asina phosphatidyl ethanolamine iyo phosphatidyl serine ayaa laga helaa marka hadda marka farqi u dhaxay ma aragteen kow farqi u dhaxay maxaa waaye phospholipidska oo yaala outerka ama qaybta kore iyo phospholipidska yaala innerka ama qaybta hoos maxaa waaye kow waxaa waaye phospholipidska yaala qaybta kore wuxuu leeyahay ama ku samaysan yahay phosphatidylcholine iyo sphingomyelin laakiin qaybta phospholipidska yaala xagga hoose waxay ka samaysan yihiin ama oo yaalo phosphatidyl ethanolamine iyo phosphatidyl serine farqiga kooda u dhaxay waa marka kow labo proteinka associated outer leafletska iyo proteinka yaala inner leafletska way kala duwan yihiin alla maqasheen waxaa lagu dhahay proteinka oo yaalo outer leafletska uu ka duwan yahay proteinka yaalo inner leafletska proteins associated outer leafletska are different waxay ka duwan yihiin from proteins yaalo inner leafletska way ka duwan yihiin labo waa farqi labaad waa farqi saddexaad maxaa waa u dhaxeeya outer leafletska has a lot of carbohydrate attached outside but inner leaflets that don't have any carbohydrate attached inside macnihiisu waxaa waaye qaybta kore waxay leeyihiin carbohydrate ayaa ka buuxo ama ku dhegan carbohydrate ayaa ku dhegan laakiin qaybta hoose carbohydrate dhan ma walahanba faade carbohydrate ma walahanba qaybta hoose
haddaba saddex farqi ayaa u dhexeeya qaybta phospholipids qaybta kore iyo phospholipids yaal qaybta hoose maxaa waa farqi u dhexeeya ko phospholipids yaal qaybta kore uu ka duwan yahay qaybta kan yaal qaybta hoose wuxuu ugu duwan yahay qaybta kore outer leaflets waxay leeyihiin phosphatidylcholine iyo sphingomyelin laakiin qaybta hoose waxay leeyihiin phosphatidylethanolamine iyo phosphatidylserine ay sidoo kale proteinka yaal outer leafletska uu ka duwan yahay proteinka yaal inner leafletska sidoo kale carbohydrateska ku dhagan outerka ama qaybta kore waxa ku dhagan carbohydrate ayaa ku dhagan saddex laakiin qaybta hoose ama inner leafletska ma walaha carbohydrate malaha waa saddexda farqi u dhaxayso marka okay waxa la dhahay marka between the legs of fatty acids there is molecule it love to be there and cholesterol macnihiisu waxa waa fatty acid maxay idin dhahdaan fatty acid soma kan hada maxay yiraahdaa kan maxaa waaye oo iska soo horjeedo waxaan iska soo horjeedo maxaa waaye waa fatty acid soma sida daraadeed waxa jiraba wax jecel inuu ku dhago lugaha fas maxaa la yiraahdaa oo fatty acidska agtooda ama lugahan inuu dhaxdooda inuu iska joogo jecel yahay macna waxa jira wax jecel inuu dhaxdooda inuu iska dhex joogo lugahan dhaxdooda inuu iska dhex joogo yaa waay marka waa cholesterol haddaba iska jir marka cholesterolka cell membrane ku samaysan yahay intuu yaala hadii uu dhahay cholesterolka intuu yaala between the legs of fatty acids ayuu yaala marka lugaha ayuu u dhaxaya fatty acid lugooda ayuu u dhaxaya haddaba maxaa la yiraahdaa cholesterolka maxaa la yiraahdaa inta laga helaa cell membrane-ka waxa la yiraahdaa between the legs of fatty acids ayaa la helaa wuxuu yaalaa lugaha fatty acidka ayuu yaalaa marka okay hadda marka waxyaabo badan ayaan ka soo hadalnay oo maxaa la yiraahdaa oo ku saabsan lipidka waxaan idin soo sheegay maxaa la yiraahdaa structure-ka oo cell membrane-ka marka ka hadlayno inuu ka samaysan yahay phospholipid iyo associated proteins sidoo kale maxaa la yiraahdaa cell membrane-ka waxa dhahnay waa double layer waa marka of molecules waaye sababtan waa caddeyn doonaa insha Allah taala waxa dhahnay cell membrane-ka wuxuu ka samaysan yahay phospholipidska qayb phospholipidska marka ka hadlayno waxay leedahay polar iyo waxay leedahay fatty acid polarka macnihiisu waxa waa waterka ay ku milmi kartaa laakiin qaybta oo fatty acidska biyaha kuma milmi karta marka sida daraadeed maxaan dhahnay marka maxaa la qaybta biyaha ku milmi karta maxaa dhihi doonaa waa hydrophilic qaybta biyaha naibna waxaa dhihi doonaa waa hydrophobic marka waa kana qaybta maxaa dhihi doonaa oo madaxa guduudan hydrophilic waa biyaha jecel yihiin kuwana waa fatty acid ayagoo double layers oo isku oohe qaybtan waxay wajahantaa qaybta extracellular fluidska qaybtan waxay wajahantaa intracellular fluidska lugahoodana waa isku soo horjeedaa lugaha sababta iskaga soo horjeeda maxaa waaye sababtoo biyo ma arki karaan oo biyo ay neceb yihiin okay waa kana structure waa ka soo sheekeynay waxa dhaanay biyo badan ayaa yaalo banaanka iyo gudaha saa daraadeed cell membrane ku kala soocaa waxaan dhaanay waxyaaba aad ku waaweyn ama jaajiska ma gudbi karaan cell membrane-ka saa daraadeed cell membrane-ka waxa gudbi karo labada shay maxaa waaye waa wax lipid soluble cunto ama dufin waxyaabo dufin ka buuxo cell membrane-ka si dhaqsi ay ugu mari kartaa sidoo kale waxyaaba aad ku yar oxygen iyo carbon dioxide-ka aad ay cell ku dhex mari karaan laakiin waxyaaba waaweyn ama jaajiska kale ma gudbi karaan cell membrane-ka qaab kale ayaa loo gudbi doonaa waana imaan doontaa insha Allah taala waxa dhaana phospholipidska yaal qaybta kore iyo qaybta hoose way kala duwan yihiin qaybta kore waxa yaala laga helaa phosphatidylcholine iyo sphingomyelin qaybta hoose waxa ka helnaa phosphatidylethanolamine iyo phosphatidylserine waxa dhaana proteinka yaal qaybta kore iyo qaybta hoose way kala duwan yihiin sidoo kale carbohydrate kaliya waxa la helaa outer leafletska laakiin laga meelo inner leafletska sidoo kale waxa dhaana waxa yaala cholesterol ayaa jiro cholesterolkan waxa laga helaa aan dhahnay waa between legs of fatty acid ayaa laga helaa marka legs of fatty acid ayuu jecel yahay inuu ku dhago haddaba halaas waxa ugu bixi doonaa maxaa la yiraahdaa phospholipidska insha Allah cashirkeena part 2 waxa uu hadli doonaa associated proteinska ayaan ku jeexi doonaa insha Allah ma sinidin